الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله حنين دردار ما يا إلهي عبسيدي تبارك وتعالى إنا دريقي سلازمتان والدين كدق يا إلهي تبارك وتعالى إنا عاصدان وطريقي سقرمرتان khudbadeenu maanta waxay ku saabsan tahay dhacdadii ka dhacday wadanka New Zealand muslimiin tukanaya oo salaadii jumcada tukanaya ayaa la weeraray sida la wada socota konton baa si naxariis darra loo dilay tiradaas oo kale tan waa dhaawac qaar badani ay dhaawacoodu xun yahay su'aashu waxay tahay maxaa loo dilay maxaa sababay in la laayo maxaa dambi ay galeen jawaabtu waxa weeye dambigoodu waa inay muslimiin yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala sidoo quraanka inoogu sheegay dadka xun iyo mujrimiinta agtooda marbu wanaagu dambi ka noqda wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid muslimiinti inta dabka la shiday lagu guray allah markuu ka warramay wuxuu yiri waxa loo nacay oo loo laayay oo dabka loogu guray waa inay ilaahay keligii rumaysan yihiin oo bas دمبي كلمة له مؤمن آل فرعون مركي فرعون يمحوها يقوله سو أي دمعان إني الدلان نبي موسى ودلينا وحكوا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ورنين موحات كد ليسان إنو يريئو كليا ربي جيو الله فرعون ربي إيماءها صنمنا ربي إيماءها الله كليجي بها ربي أما أنت ستكد لسان الدنب وقد لسان سأستراد المجرمين ثم مربى وناقو حمان نقضع مربى وناقو دنب النقضع لأن بني آدم كتصور كيسية مسكح دي سيبا اسبد شيء مربى طهارة إيا الطهيرنات إيا أخلاق دا وناق سني حمان نقطع نبي الله اللوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوم كيسو مركو دحجوغا اسغي qoyskiisa bas ay ka badbaadeen oo ay ragu xumaanta isku sameynayaan oo uu xumaantii ka reebay waxay yiraahdeen akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun magaaladiina ka saara iyo deegaankiina luut iyo dadka la socda maxaa dambiga galeen waa dad isdaahirinaya waay war haddaan la isdaahirin maxaa la samayn lahaa isdaahirintii baa dambi ah sidaas daraaddeed tawxiidkii baa dambi ah akhlaaqdii wanaagsanayd baa dambi ah wanaagii ilaahay khalqiga faray baa dambi ah kaasaa la isku dilayaa wax kale ma aha xoolo la iskama qaadin arsaaqna la iskama qaadin laakiin mabaadii baa la isku dilayaa arrinta aynu u baahannahay inaan fahannayo waxay tahay dhacdada noocaasa iskama imaanin waa natiijo ka soo baxday 10 sano midho la beerayay oo ay beerayeen madaxda reer galbeedka qaar ka mid ah oo ay beerayeen warbaahinta reer galbeedku ay beerayeen oo ahayd islaamka in dadka lagu diro la nacsiyo suuraxun in laga bixiyo in laga dhigo yey dad cun ah oo waraaba ah oo naxariis la'aan ah oo argagixisa ah oon xasilooni lahayn oo naxariis aqoonin oo inay wax dilaan oo wax burburiyaan mooyee aan wax kaleba garanaynin tacliinta noocaasa muddo dheer iclaamka reer galbeedka ka socotay madaxdooda iyo siyaasiyiintooduna ay dheefinayeen oo ay xoojinayeen natiijada ka soo baxday waxay noqotay inay abuuranto noocaas oo kale dad aan waxba qabin intaad ugu gasho meel ay ku cibaadaysanayeen naxariis la'aan كنقو أو هدنا الدل أو سوقاده أو هدنا بابي أو داوعتير أو يان لقى كعن نتيجة ذا صباح كلي جدنا ما أسبوعا قديه سكلية
afar masjid oo ku taala wadanka Ingiriiska magaalada Birmingham ayaa lagu xadgudbo la weeraray oo dirishadaha laga burburiyay horay Mareykanka maxaa uga dhacay Canada maxaa ka dhacay Europe horay maxaa uga dhacay Islamophobia nacayb islaam baa la abuuray sidaas daraadeed nacaybkii islaamka muddo la abuuray natiijadiisii waay ma aha nin iska xanaaqay ma aha nin iska xanaaqay ma aha nin maskaxdiisu dhiman tahayna ma aha siday ku marmarsoodaan wax kasto dhaca ijraam kasto yimaada maalinta dambe waxa lagu leeyahay maskaxdiisa dhimanay ma dhimanayn maskaxdiisu iyo duruus aad horay dadka u barteen iyo tacliin aad muddo wadeen ardadii ka soo baxday waay sidaas daraadeed baa mawjadan cunsuriyada ah ee islaamka ku wajahanee nacab dadka muslimiinta waa midho muddo la beerayay oo hadda soo go'ay waay waxaas qariib ah oo la yaab leh reer galbeedka oo sheegta inay yihiin adduunka intuu soo maray xadaaradihii soo maray midii ugu qiimo badnayd oo insaaniyo bini aadannimo xuquuq naxariis sinaan tasaamux wada noolaansho waxaasi dadka ka dhaadhicinaya waxaad isweydiisaa hal kelimo oo ku saabsan jinsiga yahuudda ah ruuxii yidhaahda nuuxu dooni ha ahaado qawaaniin baa ka taalla la yidhaahdo mucaadaatu saamiya nacaybka yahuudda looma dhowaan karo maxaa diiday islaamnimo nacaybkii islaamfoobiyada in qawaaniin laga dejiyo dadka lagu ilaaliyo maxaa diiday dadka madow ee Mareykanka lagu laynayo in qawaaniin laga dejiyo difaacaysa midabkooda in lagu laayo maxaa ka dhigay inay ictiqaadiyaan ninka cad ee Yurubiyaanki waa jinsi ka fadli badan dadka intiisa kale waana mabda ay cunsuriyadu ka duulaysa waay nacam isticlaa'u al-biid iyo tafawuq ar-rajul al-abyad ninka cad inuu ka sareeyo dadka ka sareeyo nacam وعقيدة يهود هذا كورا يجري نحن أبناء الله وأحباؤه شعب الله المختار ما أنت ننكي عذابا وحو تاغين هي شعب الله المختار بانا هيدت كان وانكسر ريا كم مدو وانكسر ريا عرب كم محوها هي عسينكا وكسر ريا مارينكا وكسر ريا ميدب كيغان كسر ريا ومبدأ دوكتهين دينتا انو ماشي كي استاكت إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي أنتم من آدم كلكم من آدم وآدم من تراب نعم ما أهمرك الضبقة هوسي إيضاد هوسو مساكين فكر الرميسيهن مئه أحزاب حق بدن أيا فكر كالنوع عاسمان تدور الشكو قليسا بل كجمد wadamada reer galbeedka kaga mid laga yaabana sanadaha soo socda inay qabsadaan ba wadamadaas bal dawladda adduunka ugu xoog badan Mareykanka madaxeeda u sareeya waa cunsuri muslimiinta nacab oo madowga nacab oo dadka yimaada nacab oo carabta nacab oo dadka midabkooda iyo jinsigooda iyo diintooda ku nacab su'aal isweydii marka aaway waxay reer galbeedku sheeganayeen aaway sinaantii أو عدالتي أو حقوقي لماذا مركي تماده مسلم قضيتي ستمادية إن لو واحد قبلنا واقعون في واحد قدب رعي هل نمباكو كعي مركي مد دين إسلام ككو أبترسنا يفل أن النكو وافق سنين سمعينا وحال لي الإسلام الإرهابي دين إسلام كان لوجو أبترنا يا نينكستو مسلم وميل شوغنا وكو جورعيه أورتيف هو يدي كو جورعيه نينكستا مليار إيه نصف مليار كمسلم كا تصرفات كأيدات كقاركوت سمينيا دين الإسلام ككو أبترسانيا وكو جورعيه ميد يجا كم يدو تربييين مركو وحنا عصا كو كعلنا وحلاليا مسكحدو كتشريا ما فيوبا بالله عليك بل سويدي أوي حضارة دي رجال بيتكو أوي كوار مسلمات وصومالية أو كونغرس كأمريكان كو تشرت أي كلمة صح كو هذا الشيء إسرائيل وحد جذب كالأركوة ده
sida ay maraykanka dhaqaalihiisa uga faa'iideysanaysay hal taqriido yar ka qortay maraykankii waa kacay mana fadhiisanay madaxweynihii waa kacay ilaa loo fagaareeyay gabadhaas iyo madaxweynihii dhanaayo dalka labadii xisbiba waa kaceen wadanka ka tirsan jiray dimuqraatiga iyo jumhuurigiiba waa kaceen gabadha yarta la dagaalamaya xaqiiqay sheegtay markaas waxa leeyahay hal iscasisho hal eriyo leesh boqolaal madow markii la laayana macna male masaajida muslimiinta marka la galana macna male madaxu ka jiray wax ka soo qaad male risaaladaasi waxay ku socotaa qaar badan oo inaga mid ah oo ay cajab gelisay reer galbeedku oo ay la qumanaatay thaqaafada reer galbeedku oo u qaatay adduunkii inuuba ku dhammaaday thaqaafada reer galbeedka oo liberaaliyiin iyo cilmaaniyiin ah oo najiidayo noo jiidayo inaan reer galbeedka ku dayano iyo dhaqamadooda akhlaaqdeenna iyo dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo waxeenina aynu ka tagno risaaladaasi waxay ku socotaa fasira waa idin kale dadka ha lagu dayda reer galbeedka noo fasira maxay yihiin waxyaalaha noocan dhacdooyin nin walba akhrinaya waay maanta wax qarsooni ma jiro intaa kadib rasaa'il dhowr ah ayaan doonayaa inaan muslimiinta u gudbino khaasatan muslimiinta aqaliyaadka laga tiro badan yahay dhulalka gaalada ku nool qodobka koobaadi waxa weeye risaalada koobaadi waxa weeyaan diintiina ku sugnaada caqiidadiina ku sabra wixii dhacaya ha dhaco ha laydinku dilo laana waa la wada dhiman geeridu waa xaq laakiin inaad tawxiid ku dhimato iyo inaad gaalnimo ku dhimato farqigu intaas waay inaad dhimato adoo tukanayo lagu dilo waa shahaada waa dhimashatii ugu qiimo badnayd waay ruuxa muslimka ah haddii diintiisa loo dilo oo caqiidadiisa loo dilo oo akhlaaqdiisa loo dilo xataa gogashiisa iyo gurigiisaba ha lagu dilay waa shahiid ilaahay baan uga baryaynaa tabaaraka wa taala inuu shahaadadooda aqbalo muslimiinta la leeyahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan isaga iyo saaxiibkii abubakar iyo cumar iyo cuthmaan baa waxay fuuleen buurta uxud ayagoo buurta korkeeda saaran ayay buurtii dhaqdhaqaaqday way gilgilatay way ruxatay markaasaa nabigu sal alla alay wasalam buurtii la hadlo wuxuu yidhi uxudow dhaqdhaqaaqa jooji waxa ku dul saarani waa nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid waay nebiga garanaya صديقنا قرنا وأبو بكر لبدا شهيديه وعمر يا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين عمر waxaa lagu dilay magaalada Madiina asagoo jooro furin dagaal lagu madilin asagoo muslimiinta tujinaya masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam baa la dhaawacay kadibna sidaasuu ku dhintay radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ma'a dhalika nabigu wuxuu uga marxaati kacay inuu shahiid yahay Uthman sidoo kale magaalada Madiina lagu dilay oo qolo kacdoon samayso khawaariji balaayo kharibana baa dishay magaaladii nabiga lagu dilay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asaguna furin dagaal lagu madilin maca dalika nabigu wuxuu ku tilmaamay laba shahiidinayeen limaada lianna aqeeda loo dilay lianna dawrkiya kaalintay diintan kulahaayeen faafinteeda loo dilay cadow baa dilay maadaama ruuxa diintiisa loo dilo muslimka waa shahiid hatta masaajid ha lagu dilo goboshiisa ha lagu dilo banaanka ha lagu dilo sidaas daraadeed geeri fiican way inaad qabsataan oo diintiina ku dhimataan oo ku noolaataan wax ka fiican ma jiro ilaahayna quraanka kariimka wuxuu inagu baray duruus buu inagu siiyay dadka muslimiinta markay xaalad adag galaan inay diintooda ku dhintaan oo ayna marna diintoodii akhlaaqdooda ka noqonin wax kasto idin qabsada marka diinta ku fara adayga xijaabka ku fara adayga salaad iyo masaajida ku fara adayga akhlaaqda wanaagsan ku fara adayga ku noolaado ku dhinta qodobka labaad ee risaalada labaad waxay tahay dadka aad dhex joogtaan hadday iyagu idin nacab yihiin ama qaar idin nacab ku jiraan idinku muslimiin baa tihiin dad risaalo iyo mabda xambaarsan baa tihiin naxariis baad u xambaarsan tihiin khalqiga iyo aadamaha sidaas daraadeed raad wanaagsan kaga taga akhlaaq wanaagsan ku soo jiita dhaqan fiican kula dhaqma diinta gaarsiiya naarta ay galayaan uga naxariista u danqada nabigeena salawaatu rabbi wa salaam marxalada noocaas oo kala markuu ku jiray gaalada dhibkeeda waxa la yiri isaga dulqaado
iska cafi salaydi nabiga salawaatu rabbi wa salaam marxalo muayana yahay maraaxil istidcaafka ahkaamteedu sida waay saas daradeed baa la amray nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisuna saasoo inay dilaan bay isku dayeen kii dul istaagay seefta la dul istaagay inuu dilo damcay markay seeftii ka dhacday oo nabigu qaatay oo uu ku yiri yaa iga ka celinaya wuxuu yiri maxamedow nin seef qaada ninka ugu fiican noqo iska kaydaa ka iska tagu nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi saxaabadiisii ku qamaamaysayna waa ka celiya rasuulku sallallahu rabbi wa sallam alayhi way dilayaan asaguna waa cafinaya inay dilaan bay isku day waa caayayaan asaguna diin buu gaarsiinaya tawxiid ku gaarsiinaya noloshiisa sallallahu rabbi wa sallam alayhi baa cidhiiri buu gelinayaa si uu iyaga uga saara gaalnimada sidaas daraadeed khalqigan kooda ku nacab ka ku jecel ka kula jira risaalada ina saareen wax way dadka khayr ka gaarsiiyay akhlaaq wanaagsan oo soo jiidatana kula dhaqma hatta haday kuwa idin nacab mutatarrifiina ku jiraan misaal waxa inoo ah saxaabadii nabigeena sallallahu rabbi wa sallam alayhi dhulkii ay ku noolaayeen oo Makka markay ka carareen oo ku noolaan waayeen oo ka hijroodeen tolkood baa laayay tolkood baa cadaadiyay xoolahoodii baa la qaatay waa la rafaadiyay qaar baa la laayay markaas loo idmay inay hijroodaan oo dhulka isaga tagaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku jiheeyay inay aadaan ardul habasha halka waxa ku nool nin boqor ah oo dad agtiisa dadka lagu dulmiyeen halkaas ay aadeen saxaabadii nabigu sallallahu alayhi wasallam markay ardul habasha tageen kaliya qaxooti mayna ahayn qaxooti baatiin maxaad qaban kartaan ma ahayn waxay sameeyeen oo kaga tageen raad laga tago kii ugu qiimo badnaa waxay sabab u noqdeen inuu soo islaamo boqorkii dalka haystay Najaashi maalinka boqorka ay islaamiyeen ila maantana dhulkaasi diinta islaamku kama dabargoyn raad fiican bay ka tageen sidaas daraadeed raad fiican kaga taga mujtamacaadka dhex joogtaan idinkoo isticmaalaya wasaa'isha ilaahay idin baneeyay tabaaraka wa taala qodobka xigaay wax way risaalada xigtaay mu'minku meel kasto uu joogo khaasatan meelaha khatartu ka jirto waxa loo baahanyaa inuu taxadarkiisa yeesho taxadara qaata ijraa'aadka wiqaa'iga laana shariicaduna waxay ogashay taxadarka bal rabbi wuxuu ina amraya tabaaraka wa taala taxadarkiina qaata isdiganina caalamkii hore ma ah yurubna yurubtii hore ma ah maraykankii hore ma ah balaaya kacday mawjada kacay xaaladuna waa si adkaanaysa talagalkeeda inaad yeelataan ma aha inaad isdigataan oo u qaadataan isbedelka socda in badan oo kamida wadamada Yurubka waxa qabsanayo ku soo wajahan ahzaabta cunsuriga oo qabtay in diinta islaamka iyo dadkeeda Yurub laga saaro waxa soo kobcaya xaaladda marka inaad la socotaan oo taxadarkiina yeelataan waa laga maarmaan waxa sidoo kale to mudan inaan tilmaano Allah tabaaraka wa taala shar kaliya ma abuuro dhacdooyinka dhacaya muslimiinta lagu dulminayo caalamka ka dhacayay khayr badan ba ilaahi tabaaraka wa taala laga yaabaa inuu ka ratibo nataa'ij ajaa'ib ka dhalanayso marmarka qaarkood maxay ilaahay rabbi tabaaraka wa taala shar kaliya ma abuuraba barmar waa shar dhacaya laakiin sharkii baa wuxuu ka soo saaraya rabbi tabaaraka wa taala nafci weyn iyo maslaxa weyn saas daraadeed nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi munaafiqiintu markay gurigiisa ku been abuurtaan oo xaaskiisa iyo gurigiisa ay galeen oo mudabbil ku dhawaada gurigii nabigu ruuxanayay salawaatu xaaladu adkaatay ayaa Allah xaalada markuu ka waramay wuxuu yiri innal ladina jaa'u bil ifki kuwa been abuurka la yimid ee guriga nabiga ku been abuurto idin kamida waa koox idin kamid la tahsabuhu sharran lakum ha umalaynina inay shar idin yihiin لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم شر ما هي خير بيدينتا ورغوريغي النبي ولا غلي ولا جلجلي حاسكيسي ولا عايي ورير سابي خير كن نقطي لان خيرك كدى شيء با كوين شرك كجيره sidaas daraadeed i'tidaa'aadka iyo waxyaalaha dhacayay meesha muslimiinta lagu laayo kontonka lagu dilay waxa laga yaabaa inay sabab u noqoto boqolaal inay ku islaamaan taas sababteed kuma yaal inay mustaqbalka ku islaamaan dhacdadaas sababteed inay intaasoo khalqiga u garaabaan muslimiintu ay sabab u noqoto inay diinta u soo dhawaadaan saas daraadeed mar walba waa inaan fiqiyo fahamkeeda yeelano dhacdooyinkan Allah baa maamulaya reer galbeed ma maamulayo hadday iyagu maamulayaan si kale u dhigi lahaayeen laakiin Allah baa koonka ka taliya cid kale kama taliso
qodobka u dambeeya wuxuu yahay oo muhiimka ah aafadan muslimiinta qaarna waa qaar meesha tagay oo dhulalkoodii ka tagay qaarna waa qaar meesha ku dhashay oo aan balad kalaba lahayn kuwa dalkoodii ka tagay oo dhulkaasi lagu laynayo ama lagu dulminayo waxa geeyay intooda badan dhulkoodii baa qasmay dhulkeennii baynu qasnay dhulkeennii baynu isku laynay madax khariban baa ina heshay ammaan baa laga waayay noloshii baa adkaatay naftu xaggay kugu aamintaa iyo carar baa la galay sidaas daraaddeed kii dhulkiisa ka tagay in lagu soo celiyo waa in dhulka muslimka la dejiyo waa in muslimiintu isfahmaan waa in midnimada lagu dadaalo waa in dagaaladan aan macnaha lahayn laga baxo waa in muslimiinta deegaamadooda la dejiyo si kii ka tagayna uu jaanisu ugu soo noqdo u helo ka muslimkee dhulka ku ciqaaban ee ku dhashayna mahjar iyo meel uu soo hijroodo u helo haddaan taa la samaynin muslimiinta dhulkaasi waxa soo wajahaya xaalad adag iyo challenge iyo taxadiyaad aad u culus meel la aadana ma jirto laana dhulkiiba sidan u yaala carab baa sidan u taala innaga sidan u naala innaga halka isdhignay waa inaan marka fahamkeena iyo fiqigeenu inta ka weynaado oo dhulkeena iyo dalalka muslimiinta in la dejiyo madax wanaagsan oo saalix oo dalka iyo dadka u danqanaysana sidii loo hagaajin laga fikiro si loo helo muslimiintu ay jaalis iyo ciz iyo sharaf ugu noolaadaan sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma ya hayy يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة